وليجن ما وضع مرمين وليجن مزدجالين وليجن هذا الحين يمودهن وحيابا عن رجل أن أقدرت وحسواي because sababtoo qofka aad jeceshahay hadaladiisa waxaad u tixgelinaysaa like sida waalidiintaada aad u tixgelinayso amal ayaad u tixgelinaysaa qofka aad jeceshahay hadaladiisa قاد ماشي صايب بلاد يا ما مشيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي وإذن سلامي ملكا سؤال جوتان كسر هذا موال أصب إيو مالن أصب إيو وقت قروح بدن كي هادا كو أصب تهي سبسكرايب نوصار لايك هذا نوع أصي فكر كذا هوس نولا وذاب وما سنتين موال كنا مانتا وحو كسابسين هاي سيدا تايتل كا أما ثامنل كا أتكسو أركتنبا dad lisla wada jecel yahay bulshada Soomaaliyeed way kala fikrad duwan yihiin wayna kala cilmi badan yihiin wayna kala aragti dheer yihiin ahaantii bulshada Soomaaliyeed hada magaca ka dhax sameeysid waxa badanaya security-gaaga badanaya asxaabteeda muuqaalkana maanta waxaan u hadli doonaa saaxiibkeena Darisle Abdi oo waxaan arkay kabi jilaayo jilaayo muuqaalka weli ma daawanin isceli jecel ma dhahaye saaxiibkeena ama walaalkeena Darisle Abdi iyo Samiha Khaliil oo ka hadlayo si isku barteen muuqaal soo geliyay barta YouTube-ka Darisle Abdi waxaan arkay markay muuqaalkaas oo la soo jarjaray ayaa waxaan ku arkay TikTok oo dadka inta badan ay ka fal celinayeen ayaan ka sameeynaa reaction la fiirno qaabka muuqaalka loo sameeyay iyo qaabka muuqaalka lagu hadlayo fikirkeyga ayaan rabaa in aan ka dhibto marka waxaan rabnaa in aan fiirino marka waxyaabaha xaqiiq ay noqon karaan iyo waxyaabaha aan noqon karin xaqiiq marka barnaamijkeenas meeshaas ayuu ku socdaa aan isla daawano muuqaalkeena labada qof ee saaxiibaha mar walba qof uu feeling ku jira really والله okay ايوه wax jira wax la sameeyay ma okay mar walba qof buu Felix ka jiraa mar walba qof feeling ugu dambeynta qof aa wax sheegay لكن هذا فيلز جرى حتى ما تقنطع أدونكم حقوق في عن ما تقنطع لا بقف وأصحاب ورشة قوة صعبة مع نوتا marka labada qof oo saaxiibada qof kale ayuu tixgeliyaa waxay tiri marka qof oo waqti badan ay soo wada qaadateen waqti badan ay soo wada hadal jirteen ay xiriirin jirteen ay istixgelin jirteen waxay tiri way fiicnaan lahayd in isguursan lahaayeen waaw ama wax la jiraan ma ogi laga yaabaa laakiin aan aragtideeda ahaan aan uga hadlaya su'aasha taagan ayaa waxay tahay labada qof oo saaxiibada ama wiil iyo gabar ma jeclaan karaan barnaamijkeeni saas ayuu ahaa la aragno muuqaalka xiga وليجن ما وضع مرمين وليجن مزدجالين وليجن هذا الحين يمودهن وحيابا عن رجل أن أقدرت وحسواي because وحول بعض هنا ما كان فكرة حتى هيو هريج ده كلب وسحسين وكلبي هذا ميده والله that's why وحاول كوسي كوفي عنا ولا تنورينا so yeah هذيكي وقت يضم سوي عجري يري واجي فايدة وقت الضم you know qofka marka aad adiga jeceshahay waxaad ka ilaalinaysaa qofkaas wax walba oo ninkaas buu ku dhalin karo oo aad isku dagaali kartaan oo aad isku murmi kartaan ayaad ka ilaalinaysaa waxay qayb ka tahay feeling-ka oo Darisle ka hadlaya wax walba dhahana
ma ka fikira xataa hayuu horeyga dhahaa qalad waa musaxsin uu qalday hadaa may dhaho والله that's why waxaa kugu sii كوفي عنا أنت jeclaaday walaaltinimadeena so yeah qofka ku jecel I mean qofka adiga aad jeceshahay haddii maanta adiga uu kugu dhaho for example waxaasaan samaynaya qasab waa u ogolaane markaas adi dood kama keeni kartid waxaasaan samayna waxaad leedahay haye sababtoo ah qofka adiga aad jeceshahay hadalkiisa waxaad u ixtiraamaysaa sida waalidiintaada aad u ixtiraamto oo kale ayaa ninkaana aad u ixtiraamaysaa hadalkiisa wax walboon dhahana ma ka fikira xataa hayuu horeyga dhahaa qalad waa musaxsin uu qalday hadaa may dhaho والله that's why waxaa kugu sii كوفي عنا أنت jeclaaday walaaltinimadeena muuqaalkeena kaasi ayuu ahaa waxaan arkaynaa qaabka ay isku respect gareeyaan qaabka ay isku ixtiraamaan waxay u dhaqmayaan dadka caanka ah ama dadka friendska ah qaabkay u dhaqmaan qaab ka duwan ayay u dhaqmaan muuqaalka kale oo xiga aan isla aragno gaadgaad meeshaas ku bilowday maalin baad xadid soo qortay xabiibi remember والله instagramka maalin uu isoo qoray maalintaas waa kaa waxaan wiilkaa waan jeclaa waan jeclaa anani waslay xabiibi hay حبيبي كنت أقرأ xabiibi ereyada qaar ayaa hadda waxay noqdeenba mid iska caadi ah oo ay ka mid tahay bebi xabiibi qofkan ma garanaysid xiriir makaala dhexeeyo maanta is aragteen laba maalmood ama 3 maalmood wada socoteen waxaad leedahay xabiibi bebi hoblow katruufow beebidii waxay noqotayba walaal qaali waan jeclaa anani waslay xabiibi hay okay saddexdii muuqaal oo yareed oo hadda labadooda aan daawanayay ani shakhsi ahaanteyda way iga baxday anigoo ka fal celinayo labadooda si positive ah isagana waa wiil walaalkayga ah iyadana waa gabar walaasheeda ah yacni markaad fiirisid qaabka ay u dhaqmayaan iyo qaabka ay isku ixtiraamayaan iyo qaabka ay wax iskula duubayaan markaa fiirisid waxaad u malaysaa ama waxaad u malaynaysaa qof xiriir uu ka dhexeeyo oo kale ayaad u malaynaysaa caadi waayo xiriir waa ka dhexayn karaa xiriir way samaysan karaan taas daruuri ma ahan labadoodaba waxay u joogaan in xiriir ay samaystaan wiilka wuxuu u joogaa inuu xiriir uu samaysto teeda kale iyadana waxay u joogtaa inay xiriir ay samaysto marka darisle qaabka oo hadda ka hadlayeen iyo maxaa lahay qaabka ay isku ixtiraamayaan iyo qaabka ay isku fahsan yihiin iyo qaabka qadarinta ay uga muuqato labadooda marka aad sii fiirisid waxaad moodaa in oo xiriir uu ka dhexeeyo labadooda sababtoo ah qof haddaa aragtid oo adigu danaynayo oo hadalkaaga danaynayo oo ku ixtiraamayo waa qof adiga ku jecel laakiin qof oo wax adiga aad samaynaysid negative kuga ah ninkaas ma kala jecel wax adiga aad samaynaysid iyo wax kale marka ma ku sii fogaanayno labadooda waxaa idin leenahay waxba laidinkama qaban karo midda kale haddaan ka hadalno darisle cabdi iyo samiha khaliil bulshada soomaaliyeed waxay isla jecel yihiin in ay noqdaan lamaano waana laga yaabaa inay noqdaan lamaano hadalkaygana meel ha lagu qoro soomaaliye hadalkaygana meel ha lagu qoro ani shakhsi ahaanteyda ma hubo inay noqon karaan ama inay noqdaan lamaano
laakiin waxaan ka hadlayaa mustaqbalka yacni waqti dambe inay noqon karaan lamaano is-almaday oo isguursaday. Marka barnaamijkii aan ku dul istaagaynay walaalaheena my brother and my sister waxaa idin leenahay farxadku noolaada labadiina. barnaamijkeeni intaas ayuu ku egyahay. haddaad ka cusub tahay channelka subscribe noo saar si ay ku soo gaaraan waxyaabaha dambe. like-kaadana waa codsi, fikirkaada hoos noogula wadaa. waa mahadsantihiin. waxaa idin rajaynayaa bashbash barwaaqo.